الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وحافظنا وصوها يسب بشي رمضان شهر القرآن بشي إلهي سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبشي رمضان وبشي قرآن كلا سودتي إذن قرآن iyo bisha ramadaan waxaa ka dhaxeeya xiriir adag baa ka dhaxeeya waaba bishii la soo dejiyeyba. alculamaa alafaadil ayaa siyaabo kala duwan u cabiray qur-aanka iyo xiriirka uu la leeyahay bisha ramadaan. waxaanse doonayaa meeshan in aan ka idhaahdo qur-aanku wuxuu u shafaaco qaadaa qofka saaxiibkiisa ahee ahlu qur-aanka aha ee qur-aanka akhrin jiray maalinta qiyaamaha, maalinta uu qofku ugu baahida badan yahay cid u shafaaco qaada, cid u dooda, cid u markhaati kacda maalinta iyada ah. qur-aanku axadu saalixiin baa waxaa la weydiiyey maxaan u barnaa caruurtayada, markaasuu wuxuu yidhi callimuu abnaa'akum alqur'aan, caruurtiina iyo ubadkiina qur'aanka bara, fa ina alqur'aana sayucallimuhum kula shay, qur'aankaa wuxuu bari doonaa wax kasta. markaasuu wuxuu akhriyey hadalkii rabbi subxaanahu wa tacaala alraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu lbayaan. allaha raxmaanka ah waa midka qur-aanka soo dejiyey. alraxmaan callama alqur'aan waa midka qur-aanka dadka baray. isagaa laga bilaabay marka barashada qur-aanka maskaxday kobcisaa, barashada qur-aanka carabkay laylisaa, barashada qur-aanku waa qaamuus, maskaxdaaduu furfurayaa. cilmi kasta oo isaga ka soo haray mid sharci iyo mid diin ahaaneedba ayuu qur-aanku kuu fududaynayaa. waana arrin la ogaaday. weligaa ma aragtay nin xaafidul qur'aan ah oo nolosha ka dhacay? nin qur-aanka xifdisan lafdigiisa, nin qur-aanka fahansan, nin qur-aanka ku camalfala, nin qur-aanka ku tadabbura, nin qur-aanka dadka bara oo dadka gala gaarsiiya oo haddana nolosha ka dhacay weligaa ma aragtay? anigu ma arag, u malayn maayo adiguna inaad aragtay. qur-aanku marka qiimahaasuu leeyahay. suusan qiimo u lahayn waaba qowlu rabbina jala sha'nuh, waa hadalkii alleheen subxaanahu wa tacaala. qur-aanku marka qofkii akhrin jiray ee daraaddii hurdada oga toosi jiray ee uu ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamacan wa mima rasaqnaahum yunfiquun. dadkoo hurdo kuwa u toosi jiray ee dhinacoodu uu dhulka ka kici jiray, firaashka uu ka kici jiray iyadoo isaq dhaxa tahay, iyadoon cidno ogeyn, iyagoo doonaya ilaahay nicmadiisa, raalli ahaanshihiisa, iyagoo doonaya inuu ilaahay u naxariisto subxaanahu caza wajal. kuwaasi ilaahay wuxuu u qariyey oo uu noo sheegay wax aada u qiimo badan. falaa taclamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun. waxa naf ilaahay u qariyey garan ay mayso, ilaahay unbaa garanaya subxaanahu wa tacaala. qur-aanku marka saaxiibkii waa u shafaaco qaadaa. xadiidkii abu umaamata albaahiliyi baana daliil u ah. waxaa la oran doonaa maalinta qiyaamaha iqra'u lqur'aana, nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iqra'u lqur'aana fainahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih. qur-aanka akhriya. maxaan u akhrinaa qur-aanka yaa rasuula allah? qur-aanku
maalinta qiyaamo wuxuu imanayaa isaga oo u shafaaco qaadaya saaxiibkii. suuratu lbaqara iyo aali cimraan ay u horeyso oo ay ka doodayaan, looyarna u yihiin, una doodayaan, hormuudna u yihiin, oy hogaaminayaan, yuxaajaani can saaxibihima ayuu yihi nabiga sala allahu calayhi wasalam. alsiyaamu waalqur'aanu yashfacaani lisaaxibihima, saaxiibkood bay u shafaaco qaadayaan, aw kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam. qur'aanku qabriguu nuuriyaa, saaxiibkiibuu maalinta qiyaamo u shafaaco qaadaa. qur'aanku darajaad saraa lagu helaa. qofkaas yuqaalu lisaaxibi lqur'aan, qofkii qur-aanka akhrin jiray ee la noolaa ee fahansanaa ee ku camalfali jiray, qofka isaga waa ahlullahi iyo wa khaasatuhu weeye. qofkaasi maalinta qiyaamo waxaa la oran doonaa iqra' waratil wartaqi, akhri oo kala dhigdhig oo kor noqo, jaranjaradaa fuul, darajadaasi fuul. markaasaa waxaa la oran doonaa fa ina manzilatak cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa. bishii qur-aanka, bishii ramadaan baa fooda inagu soo haysa, ama aynu gaadhnayba qur-aanka aynu ilaahay ugu dhowaano. qowlu rabbina jala sha'nuhu, aynu ilaahay ugu cibaadaysanno, aan la noolaano nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam. qur-aanka noloshiisao dhan baa qur-aan ahayd. kaana khuluquhu lqur'aan, siday sheegtay umuna caaisha, akhlaaqdiisoo dhan iyo dhaqankiisoo dhan qur-aan buu ahaa. laakiin bisha ramadaan waxaa weeye jibriil baa 2 jeer la daraaseeyey oo la dhameeyey qur-aanka. marka aniga iyo adiga iyo inta nabiga jecel calayhi salaatu wasalaam, inta qur-aanka jecel, waxaan ugu baaqaynaa inaan qur-aanka loo dayma la-aanin, si uu inoo gacan qabto, si uu inoogu shafaaco qaado, si uu looyar inoogu noqdo, si uu hogaamiye inoogu noqdo, si uu badbaadiye inoogu noqdo, si uu mukhalis inoogu noqdo, oo dhibaatooyinka iyo shadaa'idda uu inoo dhaafiyo. jacalani illahu wa iyaakum min ahli lqur'aan, wajazaakum allahu khayran. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi